waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaan ardayda Soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waa Ustaad Farsamo Cabdullaahi Cumar ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii muraajacada fasalka 12aad ee jaamacadda City University. haddii alla idmo hore waxaan soo qaadanay maadada biology-ga ahayd weli halkeeda ayaan kasii kaxayn doonaa. waxa aan soo dulmarnay oo aan revisionka guud aan kusoo sameynay qaybtii hore ahayd cutubka koowaad iyo cutubka labaad iyo cutubka saddexaad. insha Allah taala qaybta xigta waxaan gali doonaa cutubka afaraad ee lagu magacaabo genetic material iyo waxa lagu magacaabo protein synthesis. haddii alla idmo marka qaybtii hore aan soo qaadanay qaybtii ugu horeysay waxaan ku soo qaadanay ahayd nervous system. qaybtii labaadna waxa aan ku soo qaadanay qaybta lagu magacaabo endocrine system habdhiska dheecamada. qaybta saddexaadna waxa aan ku soo qaadanay skeletal system saddex system wada socota iyo muscular system integumentary system. haddii alla idmo cutubkeena afaraad waxa aan ku qaadan doonaa magaciisu yahay genetic material iyo protein synthesis. genetic material waa maxay? protein synthesis ka halkee uu ka bilowdaa goorma ay samaysmaan? waa la fahmayaa ereygan genetic material waa qaybta hidaha ama shayga ka samaysan dhaxaltooyada ama hidaha. okay, qaybta labaadna protein synthesis marka genetiga uu samaysmo waxa ka horeeya bilowga hore protein in la abuuro jirka bini'aadanka uu abuuro proteinka. proteiniska meelaha ay ka imaadaan iyo waxyaabaha la xiriiro ayaan arki doonaa haddii alla idmo. okay, waxaan wax ka arkaynaa marka genetic materialka hore la soo sheegay oo ahaa description of DNA. waqti hore foomka lagu soo arkay DNA is the genetic material ay ku soo qaadan jirnay. dhammaan noolayaasha oo dhan waxa ay leeyihiin bini'aadamka waxa lagu magacaabo DNA. DNA da bini'aadamka marka both are different mid kasta midka kale way ka duwan yihiin. okay, waxa aan fiirinaynaa marka qaybtan yar ee summary-ga ah the discovery of the genetic material. soo ikhtiraacida ama soo saaridda genetic material. okay, genetic material kaas waxa lagu magacaabaa marka DNA. okay, DNA iyo waxa laga soo gaabiyay shaqooyinkooda iyo faa'iidada ay leedahay dib ayaan ka baran doonaa. laakiin discovery-ga hore waxa iska leh after Mendel ninka lagu magacaabo Mendel oo Gregor Mendel ama George Mendel lagu soo bartay have established oo soo ikhtiraacay ama oo soo saaray genetics dhaxaltooyada through una ku soo saaray marka his discoveries soo saaritaanadiisa ku beegnaa 1850kii unexplained una ku qeexay marka soo saaridiisa discovery-ga oo ikhtiraacida ahayd the most important foundation waxyaabaha aas-aaska u ah ama bilowga u ah ee muhiimka u ah inheritance dhaxaltooyada ama isu ekaanshaha of traits ee la isugu ekaado sifooyinka ama astaamaha la isugu ekaado. traitska waxa uu dhigan yahay characteristic nooc sifo ka mid ah oo noolayaasha isugu ekaadaan. okay, the molecule marka isku dhiska qaab dhismeedka responsible for mas'uulka ah the inheritance dhaxaltooyada ama isku ekaanshaha is a part waa qayb ka mid ah chromosome hidasidayaasha. chromosomeska hore loo soo barin jiray oo ahayd body coloriska aan ku soo qaadan jirnay qaabka uu eegyahay jirka. laakiin qaybtan waxaan ku arkaynaa marka maadaama laga hadlayo genetic waxaan baran doonaa dhaxaltooyada geneticska maxaa lagu qeexaa, chromosome waa maxay, ereyga gene waa maxay waxa loola jeeda. okay, key definitionska marka waxyaabaha ugu muhiimsan cashirkan aan ku baran doono saddexdan qodob ka mid ah ee soo noqonayso. qodobka koowaad oo ah waa maxay genetic, sidoo kale waa maxay chromosome, lambar 3 waa maxay ereyga gene. qaybta koowaad genetic waxa loo yaqaan isaga dhaxal. okay, barashada dhaxaltooyada waa maxay? is the study waa barashada of inheritance ee isu ekaanshaha and variation iyo kala duwanaanshiyaha. inheritance-gaasi wuxuu u taagan yahay marka dhaxalid oo ah sifo waalidiinta ay leeyihiin ama waalidiin hore ka timid oo proteiniska soo qaaday u soo gudbisay awlaadooda. proteiniskaas markay awlaadda u gudbeen awlaadii ka soo muuqatay sifooyin kale cusub meel kale la soo dhaxmarsiiyay noocaas waxa lagu magacaabaa marka genetic. okay, haddaba genetics ka qeexitaankiisa waa maxay? the study of inheritance and variation
buugga kuma asaysna kuma qorna laakiin meel gooniya ku calaamadayso. Okay, haddaba chromosome waa maxay isna? Chromosome-ka waxaa lagu sheegay inuu yahay a number of long thread-like structure. One number of long thread-like structure waa qaab dhismeedyo xirgo dhaadheera. Okay, sida duntii oo kale ah laga helo ida nucleus buuda kaasa waxaa lagu magacaabaa chromosome. marka la baranayo marka chromosomeska waxa uu ku dhex jiraa inside the cell ka waxa uu ka sii hooseeyaa than inside the nucleus buuda. Okay, haddaba waa maxay gene hidda loo yaqaana. chromosome waxaan ku sheegnay marka hidaside maadaama kan hore hidasidaha uu yahay ereyga gene waa hiddo. noole kasta waxa uu leeyahay number of chromosome hidasida u gaar ah ayuu leeyahay. sida aan hore soo qaadanay ama aan soo baranay chromosomeska bini'aadamka laga helo numberkiisa waxaa lagu sheegaa 46 chromosome. that 46 chromosomeska ayaa lagu magacaabaa marka chromosome hidaside. Okay, 46 chromosomeskaas marka waalidiinta marka ay sameynayaan interaction oo shaqooyinka sexual ay sameynayaan each marka parent waxa uu soo daayaa waa imisa 23 sida muuqaalada cashiradena waan ku baran doono. waalid kasta waxa uu soo daayaa 23 waalid kalena wuxuu soo daayaa 23 then combine together marka la isu keeno waxay noqonaysaa 46 chromosome. Okay, noocaasi oo waalidiinta midda hooyada ka soo baxdo waxa ay soo raacdaa ovum or egg ukunta ay soo raacdaa. midda kale ee aabaha ka soo baxdana waxa ay soo raacdaa sperm shahwada ay soo raacdaa. labadooda marka ay sameeyaan then fertilization bacrimin ay sameeyaan halka waxa ka soo baxay chromosome hidaside. waxa awlaad ay dhaxleena is a gene marka halkee ay la socdaa is a part of DNA. maxaa kaloo la dhihi karaa is a segment of DNA. waa tahay qaybteena xigta the molecule isku dhiskaasoo responsible for mas'uulka ah the inheritance isu ekaanshaha ama dhaxaltooyada is a part waa qayb ka mida of chromosome ee hidasidaha. the main component of chromosome hidasidaha waxa uu leeyahay laba qaybood oo waaweyn waxayna kala yihiin DNA iyo protein. DNA sifo dhaxal oo proteiniskana waa qaybta ka mida jirka DNA-da ku dhex jirto ee nafaqooyinka ka samaysan. waxaan baranaynaa marka walxaha ay ka samaysan yihiin hidayaasha oo lagu kala magacaabo nucleic acid. nucleic acidskaasi waxaa laga helaa inside the nucleus buuda waxaana lagu bartaa dheecaan iyo dhaxal. Okay, there are waxaa jira marka two types laba qaybood of nucleic acid kuwaasoo kala ah deoxyribonucleic acid oo laga soo gaabiyo DNA iyo ribonucleic acid oo laga soo gaabiyo RNA. sifada saxda ah ee dhaxaltooyada ka hadasha oo isu ekaanshaha ka hadasha waxaa lagu magacaabaa DNA. habka codoniska lambarada tirooyinka dhaxaltooyada lagu kala gudbiyo qaybta ka hadashana waxaa lagu magacaabaa RNA. so DNA and RNA waa nucleic acid made up of taasoo ka samaysan structural subunit qaybo yaryar oo qaab dhismeeda lagu magacaabo nucleotide. nucleotideska marka waxaan ku baranaynaa qaybtan oo ah waa the building structural unit waa qaybaha dhismaha aas-aaska u ah nucleic acid. so there are waxaa jirta marka 3 parts 3 qaybood of nucleotide buudu ay ka samaysan tahay hidaha DNA. qaybtii hore boogtii hore waxaa lagu baran jiray 3 components of DNA. qaybtana waa la mid waa 3 parts of nucleotide. waa tahay marka saddexda qayb ay ka kooban tahay waa imisa 5 carbon sugar phosphate group nitrogen base. Okay, midda koowaad waxaa lagu magacaabaa 5 carbon sugar. 5 carbon sugar-ka waxaa kaloo dhihi karaa pentose sugar. 5 carbon sugar. that 5 carbon sugar marka muxuu yahay waxaan ku soo baranay kaarboonada for example pentane oo kale ee lagu soo qaadan jiray chemistry-ga oo ka mid yahay organic chemistry hydrocarboniska. tan isna waa la mid that is pentose sugar waxa uu ka mid yahay qayb ka mid ah carbohydrateska. Okay, qodobka labaad ee aan dheekan koowaad haddii aan ka soo dhammaano 5 carbon sugar-ka waxa uu ka kooban yahay laba qayb marka buugga loo eego aan ku noqonayno waa deoxyribose sugar iyo ribose sugar. deoxyribose sugar-ka halkee laga helaa found in DNA. ribose sugar-iskana waxaa laga helaa RNA. Okay, macnaha deoxy waa sugar without oxygen
okay phosphate group nucleic nitrogen base haddana waxaan baranaynaa marka nitrogen base ka DNA RNA marka la fiiriyo maxay u kala qaabilsan yihiin okay marka DNA RNA la joogo buuda waxyaabaha ay u qaabilsan yihiin waxaa ka mid ah DNA da labada xirgood DNA du ay leeyihiin oo ku baran doono qaybaheena dambe meeshaan oo kale aan ku baran doono kuwan waxa loo yaqaan marka DNA okay waa xirgahan ay u jeedaan ee wareegsan ayaa lagu magacaabaa DNA so marka aan joogno marka DNA ee nitrogen base ka aaskan tirada nitrogeniska loo isticmaalo ee proteiniska laga dhaxelo DNA waxay ka kooban tahay xirgeeda isku hayo adenine guanine cytosine iyo thymine oo laga soo gaabiyo GCT okay RNA da iyadana waxay leedahay adenine guanine cytosine iyo uracil so these two nucleic acids oo nitrogen base kan oo DNA RNA ah both are different waxay ku kala duwan yihiin oo kaliya thymine marka ay taagan tahay DNA la joogo RNA marka la tago instead of thymine waxa lagu bedelaa uracil okay uracil tan ayada kaliya waxa laga helaa RNA thymine tan tida laga soo gaabiyo kaliya waxa laga helaa iyadana DNA kuwa waxa loo yaqaan marka nitrogen base ayaa lagu magacaabaa okay haddaba nitrogen molecule isku dhiska DNA waa maxay the DNA molecule is composed of waxa uu ka kooban yahay two strands laba xirgood or chains ama laba silsiladood which are twisted another mid kasta mid kale cagsi ku ah ka soo horjeeda sidana waxa lagu magacaabaa qaab dhismeedkeeda DNA double helix means kuwa leh laba xirgood ama laba lakab kuwa leh okay each strand qayb kasta xirig kasta oo kamida is made up of waxa uu ka samaysan yahay nucleotides which are linked together kaasoo si wada jir ay isugu xiraan qaab dhismeedka lagu magacaabo phosphodiester bondiska waxa uu isku xiraa isaga double helix ka labada xirgood aan soo sheegnay kuwan ayaa waxa lagu magacaabaa double helix waa DNA da structure-ka ay leedahay qaybahan oo kale waxa noogu qoran marka DNA da la joogo thymine cytosine adenine iyo guanine sidoo kale qaab dhismeedkii la soo fujiyay hal xirig kamid ah halkan xirig waxa iska leh ribonucleic acid ka booskii thymine aan soo qaadanay waxa lagu bedelayaa waa maxay uracil laakiin inta kale way ka sameeyeen the nucleotides of the two strand ayaa bind waxay isugu dhigaan with each other waxay isugu dhigaan dabarka loo yaqaano hydrogen bond so silsiladan labada xiriga taagan waxa iska leh deoxyribose sugar halka xirig taagan waxa iska leh ribonucleic acid okay qaybahan xirgahan geeska waxa lagu magacaabaa nucleobases of RNA waxa ku jirto uracil bedelkeeda DNA marka la tagana waxa ku jirto thymine waxaan maleynayaa inaan kala fahmay waxa ay ka kooban yihiin DNA da iyo RNA oo kala ah afartan qaybood DNA basis of nitrogen RNA basis of nitrogen okay sidaas darteed haddana waxaan fiirinaynaa waa maxay importance-ga ay leeyihiin nucleic acid DNA marka la joogo buuda qaybta DNA da marka la joogo is the main component waa qaybta ugu weyn of the chromosome ee hidasidaha waa la fahamsan yahay waa 46 qaybood aan soo sheegnay labada waalid ay soo kala daayaan waalid kasta uu soo daayo 23 waalid kalena uu soo daayo 23 gurigan dabarka loo yaqaano hydrogen bond so silsiladan labada xiriga taagan waxa iska leh deoxyribose sugar halka xirig taagan waxa iska leh ribonucleic acid okay qaybahan xirgahan geeska waxa lagu magacaabaa nucleobases of RNA waxa ku jirto uracil bedelkeeda DNA marka la tagana waxa ku jirto thymine waxaan maleynayaa inaan kala fahmay waxa ay ka kooban yihiin DNA da iyo RNA oo kala ah afartan qaybood DNA basis of nitrogen RNA basis of nitrogen okay sidaas darteed haddana waxaan fiirinaynaa waa maxay importance-ga ay leeyihiin nucleic acid DNA marka la joogo buuda qaybta DNA da marka la joogo is the main component waa qaybta ugu weyn
of the chromosome ee hidasidaha waa la fahamsan yahay waa 46 qaybood aan soo sheegnay labada waalid ay soo kala daayaan waalid kasta uu soo daayo 23 waalid kale uu soo daayo 23 of spring awlaad marka joogana ay noqoto 46 ay noqoto 46daas marka awlaada ay ku aruurto ayaa waxa lagu magacaabaa inherited character sifa la dhaxlo oo 46daas kamida laakiin laba kamid ah waxay u taagan tahay lagu magacaabaa sex chromosome warki doona if Allah say qaybta xayawaankan kan ku xigo it's responsible for waxa ay mas'uul ka tahay sidoo kale determining in la sheego oo la cadeeyo the inherited trait sifada la dhaxlo waxyaabaha la kala dhaxlo regulate sidoo kale waxa ay xakamaysaa all vital activities shaqooyinka aas-aaska ah ama muhiimka ah cells unugyada okay DNA replication badashada DNA qaybtaan marka anaga aan ka hadlayno hadeer ee ciwaanka aan gunaanadka ugu dhigayno waa samiriga guud waxa rabna in lagu fahmo jawaabaha buugga aan qaadanaynana ay noogu fududaato ujeedka aan ka leenahay muraajacada revisionka waxa ay tahay ardayga sida fudud oo buuggiisa uga soo bixi karo jawaabaha okay guusha waa dhankiina dadaalkana waa inaan soo kaxeynaa okay the DNA replication the mechanism of DNA replication hababka DNA-da dib ay isku badiso occurs in 3 stages saddex bay u dhici karaa koowaad unwinding the double helix labadii xirgood ee isku dhigneed aan soo qaadanay inay kala foqaan labo linking dib inay isugu soo dhigaan ama isugu soo xirmaan the nitrogen base in Bayrish labo ay isugu soo dhigaan oo A ay ku dhigto T adenine thymine guanine cytosine okay qodobka saddexaad reconnecting the gene silsilada mar labaad dib in la isugu soo xiro okay qodobkan oo kale loola jeeda marka hadii noocan ay dhacdo waa unwinding the double helix way kala tageen hadii mar labaad la isugu keenana waxa lagu magacaabaa linking the nitrogen base xirgahan dhexda midabyada mooda ayaa lagu magacaabaa nitrogen bases nitrogen base kana afar xarfood ku soo baranay thymine cytosine adenine guanine waxa is qaadan doona xarafka A iyo T waxa is qaadan doona G iyo C okay waa marka la joogo DNA okay importance of DNA replication hadii DNA-da dib u badasho ay samayso waa maxay ahmiyadda ay leedahay okay to preserve in la ilaaliyo and transmit lana gudbiyo the genetic information warbixinta dhaxalka waa qodobka koowaad oo muhiimka ah badashada DNA haddana dib u badashada DNA to maintain inay ilaaliso ama ay xakamayso ama ay joogtayso the survival noolaanshiyaha ama badbaadista and continuity iyo socoshada of the organism ee noolaha qodobka saddexaad DNA-da muhiim ay u tahay to transmit genetic information inay gudbiso genetic information iyo gudbinaysa next generation jiilalka ku xiga oo waalidiinta ka dambeeya okay qaybta dambe ayaan soo gaarnay waxa lagu magacaabaa mutation iska waa la yaqaan waa isbedeladan marka waa isbedeladan waxa loo isticmaalaa hidaha inta badan waxaan u isticmaalaynaa isbedelada ku dhaco dhaxaltooyada so mutation is a sudden change waa qeexitaankeeda is a sudden change waa isbedel degdeg ah in the genetic material that controls kaasoo xakameeya certain characteristic waxa uu ilaaliyaa marka sifooyinka qaarkood the causes sababaha mutationska keena in ay isbedelaan ayaa waxa lagu magacaabaa mutageniska waa isbedelka ku dhaco hidaha waxa isbedelay waa maxay for example muuqaalkii isbedelay tusaale ahaan colorkii isbedelay tusaale ahaan skin color isbedelay or hair color isbedelay marka qaybahaas isbedelayaan ayaa lagu magacaabaa oo qofka hore looga baran cilad ha noqoto ama mid direct ha noqoto mutagen waxa lagu magacaabaa isbedelada ay keenaan hidaha types of mutation hadaba mutationiska isbedelada dhaca waa imisa okay there are two types of mutation waxayna kala yihiin chromosomal mutation isbedelada ku dhaco hidasidaha iyo gene mutation isbedelada hidaha isbedelada hidasidaha hore aan soo sheegnay number of chromosome inuu qaldamo or number of gene inay ciladoodo waxaan u gudbaynaa marka types of RNA
haddii aan soo koobno RNA waxay ka kooban tahay 3 qaybood: messenger RNA, RNA-ga qaadaha, ribosomal RNA iyo transfer RNA. waxaa laga soo gaabiyaa xarfaha ismoola mRNA, rRNA iyo tRNA. okay, intaan ka boga marka saddexdan qaybood waa types of RNA. okay, shaqooyinka RNA ay qabtaan. mRNA shaqada ay qabato waxa ay qaadaa instruction xeerarka sharciyada from a gene ay ka qaadaa to make sure loo sameeyo a protein. proteinka maxaa loo leeyahay in hiddo cusub laga abuuro. okay, rRNA, ribosomal RNA, iyadana waxa ay qaadaa sidoo kale RNA si loo hubiyo to ensure that the codon sequence qaababka ay isu xigaan codoniska waa 3 xarfood isla socota oo aqoonsado DNA. tusaale ahaan adenine, thymine, guanine, ama adenine, uracil, sidoo kale guanine. xarfa sidaas oo kale isku raaca saddex ayaa lagu magacaabaa codoniska. dibaan ka arki doonaa of the mRNA kaasoo is translated loo turjumo loo bedelo accurately si sax ah into amino acid isku dhiska borotiinada. qodobka ugu dambeeyo tRNA transfers amino acid to the ribosome oo meesha lagu sameeyo sugar body-ga to make sure loo sameeyo a protein. okay, structure of RNA markaan joogno tan waxaa lagu magacaabaa transfer RNA, midaan waxaa lagu magacaabaa ribosomal RNA, midaan waxaa lagu magacaabaa messenger RNA. tan soke structure-ka ay u qoran tahay ayaa waxay u eg tahay T, sidaas darteedna waa tRNA or transfer RNA. sida ay u socoto tubada waxay wareejinaysa. qaabkaanna waxay u eg tahay R ay u eg tahay, waxaana loo bixiyey rRNA oo u taagan ribosomal RNA. okay, tanna qaab dhismeedkeeda waxay u eg tahay M, sidaa darteed waxaa loo yaqaanaa mRNA. okay, inaad fahmi doontaan rajeynaya, sawirka sax badan kala bixi doontaan. okay, stages of protein synthesis, samaynta borotiinada imisa heer ay martaa. kow waxay martaa 2 qayb: transcription qorid iyo translation tarjumaad ama fasiraad. okay, transcriptioniska is the process waa habka by which the genetic instruction sharciyada hidaha in a specific gene ee hidda cayiman are transcribed la qoro or rewritten ama dib loo qoro into an RNA molecule ahaan dib loogu qoro. translationiskana waa process hub of converting lagu bedelo the information warbixinta mRNA, messenger RNA or codon ama tirooyinkii qarsoonaa ee saddexda u dhacayay intuu loo bedelo a sequence of amino acid in the process of protein synthesis, habka samaynta borotiinada. labadan qaybna waa qeexitaanka qoridda iyo tarjumaadda ama loo yaqaano transcription iyo translation. stages of translation marka translationiska isna 3 heer ayuu maraa. qaab dhismeedka sawiro leh waxaa ku arki doontaan buugga. koowaad waxaa loo yaqaanaa initiation bilaabid, elongation xoojin, termination joojin. okay, waa bilaabid, xoojin iyo joojin. okay, genetic code qodobkeena ugu dambeeya waxaan u hadli doonaa haddii alla idmo genetic code. codeka marka laga hadla waa maxay? serial number oo ku qarsoon human being kaasoo loo isticmaalo hiddo ahaan ama dhaxaltooy ahaan ayaa waxaa loo yaqaanaa genetic code. okay, sida ereyga code nooga muuqata, the genetic code is a sequence waa isku xigidda of nucleotide in the DNA, habka ay isugu xigaan. tusaale ahaan in la dhaho ACGAT, xarfaha saas oo kale in la isugu xijiyo ayaa waxaa loo yaqaanaa sequence of nucleotide in the DNA. the number of different nucleotides that form DNA are only 4. afartaas qayb midkood ayay noqon kartaa in laga soo gaabiyo A oo u taagan adenine, T oo u taagan thymine, C oo u taagan cytosine, G oo u taagan guanine. okay, codoniska gudaha lagu soo sheegaya what is codon. codoniska waxaa loo yaqaan waa tribal basis of the mRNA, waa xarfihiyo saddex iskula socdo ee messenger RNA. waa tahay insha Allah taala cashirkeena qaybtan hore halkaas ayaan kusoo gabagabeynay cutubkeena afraad. waxaan rajeyn doonaa dhammaan in la fahmi doono casharadana lagu celceliyo wax badan
haddii alla idmo qaybaha marka samariga ah ka faa'iidayso insha Allah wixii xigana casharadeenna dambe sidaan iyo si lamid ayaan u faa'iidaysan doonaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa bahda City University guul iyo bashbash iyo barwaaqo ina ka faa'iidaysan doontaan muraajacadan aadka u balaaran oo anigii Ustaad Warsame. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.